C'est bon? Ok. alaabta way fiican tahay waan bilowanahay toosoo isku tiirsada qalbigiina taagdarane taageero weligiine toosoo isku tiirsada qalbigiina taagdar
soomaaliya toos waa heestii qaranka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan. waa heestii la sameeyey markii ummadda soomaaliyeed ay xoroobeysay, shanta soomaaliyeed la mideynayey. waa hees aada u wanaagsan, waa dhaqan, waa nashiidad, waa qurux badan tahay insha allahu tacaala. iminkana waxaan dhageysanaynaa intii Jabuuti insha allah. Hayba Hawato Hayba Hawato Hawato sama Butahayo هيبة كرويها هيبة كرويها هيبة كرويها الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أيها الأحبة والريال، السلام عليكم ورحمة الله. waxaan ku faraxsanahay marka aan insha allahu tacaala ka hadlayno dalkeena iyo dadkeena. wax wadan walba wuxuu leeyahay wax u ah tilmaam. Soomaaliya calanka buluuga ah ee cirka u eg ee xidigta cadi dhex taalo ayaa u ah wax lagu garto Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Jamhuuriyadda Jabuuti calankeegaas iyaduna maaragtay samada u eg, ee dhulka u eg, ee cadanka halka dambana dhex taalo xidigta dhiigga casa ba u ah wax lagu garto wadankan. wax aad kaga duwan tahay waa idanteegaaga weyaan, waa ahaantaada weyaan. marka ismacnee haddii lagu idhaahdo calanku waa maro, laakiin maradu waxay sambool u tahay taariikh, bay sambool u tahay. heesta amba nashiidada ku dhex jirta calankana waxay matalaysaa taariikhdii ummadan ay lahayd. marka halgankan wuxuu ku xasuusinayaa Sheekh Bashiir oo kasoo dagaalamay Soomaaliya, wuxuu ku xasuusinayaa maxamed cabdillah oo sayidkii maxamed cabdillah xasan, wuxuu ku xasuusinayaa Xawataako, wuxuu ku xasuusinayaa dadkii soo galay halgankii mideynta, wuxuu ku xasuusinayaa Jabuuti markaa joogtid marxuumkii Xarbi, ilaahay u naxariisto, ee dhoofay ee soo noqon, ee calanka u dhoofay, ee u halgamayey. wuxuu ku xasuusinayaa marxuumkii Axmed Diini, ilaahay u naxariisto, ee calanka u soo halgamay. wuxuu ku xasuusinayaa maaragtay Xasan Guuleed, wuxuu ku xasuusinayaa Aadan Rooble, wuxuu ku xasuusinayaa maxaan ku dhahdaa ninkii gobonimo doonka ahaa, gabdhihiisi iyo faamiligiisuna ay qaarkood Canada joogaan, ee sameeyey maxaan ku dhahdaa in samboolka Jabuuti lagu garto. wuxuu ku xasuusinayaa maaragtay rag aada u fara badan oo taariikhda soo maray
iyo haween aad u fara badan oo taariikhdeena soo galay istuwaarkuu ku xasuusinayaa marka wax caadiya maaha dad fara badan baa ku mashquulaya heestu ma xalaalbaa ma xaaraanbaa heestan qaranka iyo isweydiinayaan qaar fara badan oo wadaado waxaan arkaa marka meelaha laga salaamaya calanka aanu sara kicin calanka walma maraan u sara kacnaa yani dadka waxaa laga bedelay waxaa lagu sameeyey maanmeyd iyo maskax meyd baa lagu sameeyey marka ma jirto wadan carab oo laisku weydiiyey calanka baan u sara kacnaa mise ma sara kacno soomaalida unbaa ku dhex arkay madhab sacuudigu mar fidinayey ayaa inagu dhex fiday markaas baa dadka laga dhaadhiciyey calanku waa sanam looma sara kici karayo calanku sanam maaha calanku waa raayo waa ramsi sambool u yahay dalkaaga iyo dadkaaga iyo sambool u yahay waxaweyaan uu matelayaa marka aad jimcida qurmaha tagtid 228 etaa 228 wadan ayaa jira adduunka 220 ka wadan nin walba wuxuu leeyahay calan ka duwan calanka kaleeto macnaha wadan walba waxaa matala maraa matasha maradaa waxaa ku dhex jira taariikhda waxaa ku dhex jirta halganka waxaa ku dhex jira rag iyo haweenka waxaa ku dhex jira wixii kiciyey ee mudifeeyey ee yidhi kaca ayaa ku dhex jira waa halgan ilaa maanta socda waa halgan soomaaliya ka socda waa halgan jabuuti ka socda waa halgan etoobiya ka socda waa halgan ummaddu weli halgankii way ku jirtaa isma taagin maanta waxaan ka warrami doonaa caalamku halku u socdaa ayaan wax badan ka sheegi doonaa hadduu ila idhaahdo waxaan jecelahay walaalayaal waxaan ka hadli doonaa dhowr arrimood oo maaragtay masii sheegaysa awal maanta mar walba arrintaan galayno iyaad la socon doontiin insha allahu tacaala marka ugu horeysa waxaan jecelahay siyaasad baan ka hadlaynaa dad fara badan su-aal bay isweydiiyaan siyaasadda maxaa loo tarkiisiyaa waxa kaleeto dhan ee adduunka jira dhaqaalaha bulshada baayac mushtarka waa arrimo privé oo gaara weyaan xataa diintu qofku isaga yaa ilaahay jannada ugu galaya cadaabtana ugu galaya laakiin waxa dadkoo dhan taabta waxa weeyaan waa siyaasadda weyaan arrinta koowaad arrinta labaad siyaasaddu scientific ma cilmiyan waxay gashaa wax walbaba siyaasaddu dhaqaalahay gashaa siyaasaddu bulshaday gashaa siyaasaddu diintay gashaa siyaasaddu waxay gashaa maxaan ku dhahdaa warbaahinta siyaasaddu waxay gashaa tacliinta educationka siyaasad tacliimiya dhahdaa siyaasaddu caafimaadkay gashaa siyaasadda caafimaadka dhahdaa siyaasaddu waxay gashaa wax walba siyaasadda magaaladay gashaa siyaasadda ilaalinta miyiga siyaasadda beeraha siyaasaddu wax ay ka maqan tahay ma jirto iyadoo wanaagsanna waa la arkaa iyadoo xunna waa la arkaa dalalka ugu siyaasad degan ugu siyaasad fiican dadka degani way ugu fiican yihiin dhinaca raaxada nolosha matalan wadanada lambar 1 baxa siyaasadda waa Denmark waa Australia waa Iceland waa Norway waa Sweden waa Finland nolosha bini aadamkuna way fiican tahay waa Canada nolosha aadamuhuna way fiican tahay way degan tahay kaalmadhada siyaasad mustaqil ah wadanada siyaasaddu ay wareersan tahay sida geeska Afrika Soomaaliya Djibouti Yemen maxaan ku dhahdaa Libya Pakistan Afghanistan wax badan dadka noloshooduna way kharaabsan tahay dadku meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan iyo waxay rabaan iyo waxa la rabo ma garanayaan okay siyaasaddu waxa weeyaan walaalayaal waa mawduucaas weeyaan imaam Ghazali sheekha la oran jiray rahimahullah ee qoray kitaabka uu bixiyay Ihya Ulumuddin wuxuu ka hadlay siyaasadda ugu fiican adduunka ayaa keena man huwa afdal siyaasi fi العالم wuxuu waa ambiyadu waa siyaasiyiin weeyaan siyaasadda iyo dadka siyaasadda macnaheedu waa maxay waa dadka waa dhaqinta dadka oo la dhaqo weeyaan walihada buu ilaahay ambiyada wuxuu u diri jiray markay yar yihiin in ariga ilaaliyaan su-aashii nabiga la weydiiyey hal raacayta ghanaman ari iyo xoolo ma raacday nabigu muxuu ku jawaabay calayhi salaam maa min nabiyin ilaa waraaca alghanam ma jiro adduunka nebi ilaahay soo saaray ilaa xoolo lagu daray sababtu waa maxay xoolaha ilaalintoodu siyaasad ba u baahan yihiin riba bukooni wanbaa dhibaata ku dhici lax bay mushkilad heli way dhali maaragtay waxay u baahan tahay ricaayo gaara hab gaara si maaragtay intii kalena adoo ilaalinaya waxaad ka dhabi waraabaha
iyo maaragtay dacwada iyo yeyga iyaad ka dhabi ood ka celini waxaad haddana dhanka kale ka ilaalin cawska u doodooni biyaad maaragtay ay cabaan baad raadcayni oo dabaguri waxaad dhinaca kale ka eegi maaragtay xoolaha maaragtay waxay ku bukoodaan oo loo yaqaan maaragtay oo cashaabta amba cawska qaar bay ku bukoodaan waqti bay bukoodaan ay jiroodaan waad ilaalini biyaha ay cabayaan waad dhowri haddana markaad soo celinaysid dariiqaa soo marinaysid baad eegi nabadgelyadiisa waxaad eegi dariiqa inay qodaxyo iyo alaab waxyaaliin marka haddana xerada aad keentid waad tirini inay dhan yihiin istastigii baad gali mid kasta meeshuu fadhiyaad eegi haddana waxaad ku xidhi oodii kadibna waxaad ilaalini meel baad u seexani waad ishaad ku hayni waxaas oo dhani waxa weyaan waa ricaaya waa ilaalin weeyaan walidaalika bay cilaaqa ka dhaxaysaa ilaalinta xoolaha iyo ilaalinta bini aadanka bini aadanku xoolo maaha laakiin baahida ayaa isku mid ah marka iyo waxaa lagaaga baahan yahay mas-uuliyadda responsibilityga walidaalika ilaah ku tababaray inay ariga raacaan nabi muusena ari buu raacay shucayb markuu u tagay calayhi salaam baadiyaha u tagay marka waxaas oo dhan macnay leedahay walidaalika imaam Ghazali wuxuu yidhi calayhi radiyallahu anhu raximahullah muhiim waxaa ah inaan garanno afdalu siyaasiyiin waa saa qorayo siyaasiyiinta martabada ugu sarreysa waa ambiyada iyo rususha markaas kow way ka yihiin waxaa ku xiga buuri madaxda umarada ragga dee barta cilmiga siyaasadda waxaa ku xigay buuri culimada waxaa ugu dambeeya buuri ducaadda aabba maraatibu siyaasiyiin markuu qorayo saas ugu qoray ninka cajiibka ah imaam Ghazali raximahullah doctor Ahmed Ar-Raysuni mufakirka la yidhaahdo inta badan waxaan jecel lahay inaan aqoonyahankana aan ku qancino fikirka siyaasiga islaamka uu qabo waxaanan rabnaa inaan siyaasadana taxliilino macnayno meesha inaan iska hadalno oo iska soo fadhiisano hadal jacayl maaha waa inaan madaxeena wax ku soo kordhino doctor Ahmed Ar-Raysuni waa aqoonyahan caalim ah oo muslim mid reer Djibouti la soo hadlo inuu wax yaqaano aan filayo wuxuu magacdana sheegtimo ba garanaynaaba mushkilad weyn baa meesha ka jirta waxa problemka ka jira waxa weeyaan dadka dhinacan ka qora wax amba Faransi ha bartaan amba Ingiriisi ha bartaan problem wuxuu ka haystaa inay fahmaan fikirka islaamiga ee carabiga ku qoran saadaradeedu waa ilaa yihiin waa dad cawara maxaa yeelay diintoodii iyo turaaskoogii iyo fikirkoogii baa ka maqan kuwa kaleetee halkan wax ka qora carabiga laakiin aan aqoon nidaamka reer galbeedka gaar ahaan maaragtay waxa ay qoraan mufakiriinta waaweyn ee Harvard wax ku qoraa amba Faransiiska amba Ingiriiska aan akhrin amba isagoo afkii ku qoran Faranjiga amba Ingiriiska ku qoran amba aan turjuman iyagana problem baa haysto iyaguna waa cawar waa ilaa yihiin mushkiladu waa maxay mushkiladu waxa weeyaan midina wuxuu yaqaan diintii oo waxa ka baqan cilmigii iyo sayniskii iyo fikirkii midna fikirkii siyaasadii buu yaqaanaa waxa ka baqan diintii iyo aqoontii islaamiga ahayd marka si loo helo miisaan waa inuu noqdo qofku qof qiraa'atu sidoo yiraahdo mufakir weyn oo imika dhintay oo Taha Jabir al-Alwan la oranayo oo jaamacad Mareykankana ka dhigi jiray Masarna ka dhigay Ciraaqna ka dhigay Sacuudigana ka dhigay madhood geeriyoodo fuqahaada waaweyna oo culimada aadka u culculus wuxuu yiraahdaa kelmad cajiiba wuxuu yiraahdaa qiraa'atani tatakamalani wala tata'aradan waxaa jira laba lecture laba lecture laba qiraa'o laba akhris oo isbuuxisaa oo isku hor iman qiraa'atu al-wahyi wa qiraa'atu al-kawn qofku waa inuu akhriyo wahyiga ilaahay soo dejiyay waa inuu akhriyana kawnka cilmiga bini aadanka waa inuu akhriyo labadaasi way isbuuxiyaan iskama hor yimaadaan problemku muxuu noqday kuwa kawnka akhriya wahyi ma akhriyaan kuwa wahyiga akhriyana kawnka ma akhriyaan huna al-mushkila marka saadaradeed marka leena doctor Ahmed Ar-Raysuni wuxuu la mid yahay anoo ku dhahdo Jean Paul Sartre ku dhahdo maartay Rousseau ku dhahdo Montesquieu qofka reer galbeedka markaa buu fahmay Harvard raga dhiga hadaan kuu sheego si maartay ninkii maartay Huntington hadaan ku dhahdo amba aan ku dhahdo Samuel Huntington amba ninkii kaleete maartay Fukuyama hadaan ku dhahdo dad baa hore u fahmaya laakiin qaar badan oo dhanka kaleeta ma fahmayaan waa ishkaaliye weeyaan dad badan labadaba ma fahmayaan iska nool hadana siyaasadda ka hadlaan qaar baa intay soo fadhiistaan xaggan wax sharxa wuxuu sharxayo reference ma leh marjic ma leh meel kuma celinayo meel kama dhaqaaqayo miciyaar ma leh norm ma leh ijraa'aat procedure u raacaya ma jirto bas iska hadlayaa
marka alxubu lilkalaam shahwa. imaam Ghazali wuxuu yidhi qofku hadduu jeclaado inuu hadlo waa shahwad weeyaan. waa qof cuntada jecel inuu aad u cuno waa gurma, qof jecel inuu biyo cabo, qof jecel inuu isbarun ciyaaro wax kala qaban, qof jecel inuu hadlo weliba in la dhegeysto doonaya. si uu u biiriyo dadku inay dhegeystaan muxuu samaynayaa? dadku caaya, weliba wuxuu caaya dadka magaca leh ee la yaqaan ee dadku jecel yihiin haybadda leh iyaad caaysaa. markaad ceebeysid waxaad helaysaa in lagu dhegeysto. ninkan muxuu sheegayaa bas waa viid, laakiin waxba waxaana sheegaysa waxba kuma dhex jiraan, culays ma leh. saa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa maanta ninkan aan nin sheegay doctor Axmed Arraysuuri waxa uu ku dhashay dalka Maroc, waa professor jaamacadaha Maroc ka dhiga ilaa 150 maaragtay risaaladood text oo laga qoray master iyo doctoray ayuu saxay oo cilmiga fiqiga, siyaasadda sharciga, fikirka islaamiga, cilmiga maqaasidda, cilmiga qawaacidda fiqiga. wuxuu ka shaqeeyey meel dhada maclamul qawaacid oo jiddo ku taala oo lagu ururiyo cilmiga loo yaqaano juridiriga islaamka. waxa dhan oo lagu ururiyo cilmiga fiqiga, qaanuunka islaamka meesha lagu ururiyo ayuu oo jiddo laga furay. yaa loo yeedhay markii doctor Jamaal Catiya ninka la jira u bukooday. waa rahiib ninkani, nin caadi ah. wuxuu leeyahay wax ka badan 30 kitaab ayuu leeyahay. doctor Axmed Arraysuuni siyaasadda markuu ka hadlayay wuxuu dhageyso السياسة الحق، siyaasadda dhabta ah ee runta ah een xag jirin. siyaasadda laba jirta, mid xag jirta dhinaca midigta iyo mid dhinaca bidixda ah. midigtu waxa weeyaan waa siyaasaadka ay sameeyaan kuwa wadaadada indhaha la sida shabaab, sida maaragtay qoladii dowladda islaamiga ka sameysay meesha dhacdo Ciraaq iyo Shaam, qaacida kuwii loonayay meelaha Afghanistan joogay, wadaadada wareersan kuwa ay sameeyaan waa midigta fog. bidixda fogna waa maxay? waa kuwa cilmaaniyiinta ee diinta ka indhala ee haddana ummad baan hogaaminaynaa leh ee dadka ugu yeedhaya maa bacda alinsaan, inuu insaanku dhammaado oo guurka fiican dhammaado oo qoysku dhammaado oo dadku ay noqdaan biro bilaa maaragtay bilaa dareena. labadaas way u dhaxaysaa siyaasadda saxda. wuxuu yidhi asiyaasatu alxaqa waxa weeyaan hiya siyaasaddu waa maxay? hiya uu macnaya kullu tadbiir. waa tadbiir, waa qof fikiraya soolishina doodoonaya, maaha qof barjaynaya oo wixii kusoo dhaca ummadda ku dhaqaajinaya. maaha fahmi karti marka qof halkaa marka hadlay waxaan ujeedo maaha qof hotel inta uu kiraysto 7 xidiga ku raaxaysanaya oo soo kacaya oo ummadda wax ku akhrinaya. maaha, waa tadbiir. siyaasaddu waa maxay? waa tadbiir. kullu tadbiir ay dabbara. tadbiirku waa maxay? waa wax laga soo shaqeeyey, waa strategical, rag baa ka soo shaqeeyey. kow wa kullu camal waa shaqo. siyaasaddu ma teoriik, waa camal, waa shaqo la qabanayo. min sha'nihi marka maxay qabanaysaa siyaasaddu? an yu'ammina linnaasi dunyaahum wa aakhiratahum. dadka waxaa loo sekriteynayaa, loo amni gelinayaa adduunyadoodii iyo aakhiradoodii. siyaasadda xaqii waa taa weyaan. qofka inaad u fikirtid aakhiradiisiina inuuna waayin, adduunkiisiina inuu helo. qaar baa idhaahdaa revolutionka dadka revolutioneerada ah isbedelka doonaya ee adduunyo u fikiraya maaha siyaasiyiin, diintay ka horjeedaan. maaha, diinta kama horjeedaan. diintu waxay u imatayba qur-aanka waxa ku qoran, xadiiska ku qoran, maqaasidda shanta ku qoran. waxa islaamku ilaahay u soo diray waa diinta. inta kaloo dhan waa maxay? waa adduunyo. waa diin, waa nafta, waa maalka, waa caqliga, waa usradda iyo qoyska iyo cirdiga. waa 5. marka naftii waa maxay? waa adduun. maalku waa maxay? waa adduun. caqligu waa maxay? waa adduun. ugu dambaysan waa maxay? waa qoyskii la ilaaliyo, horumar la gaarsiiyo. waa adduun. diintu way ugu horeysaa. marka islaamka ilaahay wuxuu soo dejiyey inuu 5taas shay ilaaliyo. maqaasidu shariica marka 5 loo qaybiyo 4 ba ah adduunyo, xabad baa diina. marka maskaxiyan waxa uu ku leeyahay sheekhani siyaasadda xaqi waxay ilaalisaa dadka diintu adduunkooda iyo maxay? iyo aakhiradooda. dadku marka maxay noqdaan? wayakuunuuna macahu marka la ilaaliyo tadbiirka waxaa leenayaa aksaru salaaxan, wanaagay u bataan, wa abcadu fasaadan, xumaantana way ka dheeraadaan. okay, dadkan waxaa laga fikirayaa marka la rabo in wadankan la hagaajiyo. Canada matala ka soo qaad, fasaad baa jira siyaasi ah. waxaa la rabaa in fasaadka laga dheeraado, wanaagga loo dhawaado. dhaqaalaha xumaaday waa laga dheeranaya, wanaagga loo dhawaanaya. waxaa laga cabsoonaya dadku inay ku biirto maaragtay lacagtu. dowladdu ma joojin karayso inay biirto lacagtu. waxaa la iibsanaya suuqa uu sara kacaya qasab. dowladdu waxay ka fikiraysaa inay mishaarka biiriso, lianna ma joojin karto waxan kale. dhinaca kale kasoo daweynaysa xalkii.
waa inay isla socdaan dadka jeebkooga waxa ku soo dhacaya iyo waxa suuqa yaala sida Afrika maaha inuu wixiina shallaamo matalan Djibouti oo kale dhaqaaluhu 9 goor 10 goor buu biiray marka laga soo bilaabo 90 ilaa maanta laakiin dadka mishaarkooga waxba kuma biirin idan taas marka maxay keenaysaa dadku waxa u dhawaanayaan fasaadka rish way qaadanayaan gubay qaadanayaan wadankay baabi'inayaan gaaja laakiin waa in la fikiro had iyo jeer si loo helo solution wuxuu yiri wa aksaru adlan wa aqallu dhulman wa ina lagu dadaalo in cadaaladda la balaariyo dulmigana la yareeyo waa taa weeyaan siyaasaddu waxa weeyaan aksaru sa'adatan dadku inay dareemaan inay wadanka ku raaxaystaan wa aqallu shaqawatan inay yaraato inta dareemaysa inayna stress yihiin cabsanayaan كلمة أبوري أقويها كوين الدكتور أحمد هذه السياسة الحقة سياسة واتاس ويان سياسة رمتي وسياسة صدق شيء كشقينسا كو فساد كيرد على مسا وناق بكينسا لبو عدالة بكينسا ظلم يرد على مسا صدق دتك أورا حينسا بونير لبو السلام مركزنا دتك waxay keenaysaa inay stress noqdaan ay murugoodaan oo ay qalaq iyo dhibaato ay dareemaan iyo kala dagaalamaysa bismillaahir rahmaanir rahiim okay marka awsaa wadaadkaasi u macnaynayo ninka la yiraahdo ibnu najiim oo ahaa caalim weyn oo u dhashay wadanka wadan mahna xanafi ahaa culimadeennii hore xanafiyiinta ahaa oo kitaab weyn la oo la yiraahdo al-ashbaah wa an-nadha'ir fiqh wuxuu yiri siyaasadda markuu macnayay waa shay uu sameeyo powerku siyaasadda powerka sameeya iyo kuwa powerka soo jeeda oo sameeyay laakiin maxaa loo sameeyaa antiri limaslahatin yaraa maslaxadu arkay ninka powerka jooga inuu aayad quraan iyo xadiis badabaqin maslaxad ummadu ay leedahay ayuu ka shaqeynaya ninka siyaasiga marka walaalayaal arimahaas waxaan uga jeeday albaab inaan ka galaan doonayo mowduuca aan maanta aan u socdo okay waxa jira problem wadanadeena islaamka mushkiladda jirtay wax weeye waa mushkilad saddex ah ko waxa jira wadaada oo diinta aad ugu fiican laakiin siyaasadda aqoon waxa jira nin siyaasiya oo diinta aanan ku fiicnayn iyo waxa jira nin diini ah isla markaasina siyaasi ah saddexda waxa uu ku macneeyay wadaadka la yiraahdo Ahmed Rasuul markii ni sheegay kelmad cajiiba oo ka soo qaatay cilmiga suufiyada waxa dhada man tasawafa ninka suufi noqda walam yatafaqah diintana baran waaye cilmi yeelo waaye faqad tazandaqa wuxuu noqdaa mulxid ya gaal صوفيته هدو قفكو فقيه نقوم وهي خرافات كبتا وين العلم يلتي سيدي امام جنيد ويلي صوفي بقى تهي محاكو لنا صوفي هذا نسكي كتاب سني اوكي ومن تفقه نينك فقه برتا ولم يتصوف اي قلبيgiisa hagaajin waayana isaguna muxuu noqonayaa nin maskax weyn shaytaan cilmi badan leh laakiin amal aan lahayn idan marka maxaa loo baahan yahay qofku inuu noqdo caalim زاهدة إلهي كحرا وربانية سوى قاعدة كده قاقي وحوري من تدينها قفك الدين يشا وذات نقطة ولم يتصيص لكن بوليتيكي فهم وايا فقد ترهبنا ترهبن كوم حي رهبان ونقضي ما يلبس كعرة كنيسة وين دباش أعوذ بالله ما حد عيه إلهي أبو قري ورزق إلهي ما حد قف سامنا وانا وكو غلط ومن تصيصها انك بوليتيك لا ولم يتدين دين يلون ويانا فقد تعلمنا لا يكبر نقرها لا شيء ولا هي كلا صار دينتي الدنيا ما عقلي قوم حي وقتينا وش هاي اساس قولي كتابك الهي بقول افرتك سورده يقول لي كما جرت السياسه دي معاكو جرا waxa ku jira si loo tukado si loo darab yeesho si quraanka loo akhriyo si loo qof loo aaso si qof loo dhiso waxaas baa ku jira no naga taa waxana adaabtii isku xidhanayay maartay siyaasadu qornay okay sheekh markaa muxuu waman tadayana wa tasayyasa faqad tamakkana man tadayana ninka diin yeesho wa tasayyasa siyaasadana fahma faqad tamakkana adduunka u fahmay laguma waali karayo laguma wareerin karayo sida maqaamisigan maartay sacuudiga noqon meeshid ay yiri maartay waan ogahay inuu maartay boqorka sacuudiga ka yar u dhalay inuu ilaahay ku xidhan yahay yani kaniisad buu noqday inuu qofku ilaahay ku xidhan yahay inuu ku xidhneen nabiga inoo sheegay kaleey salaatu wasalaam nabigu wuxuu leeyahay at-taqwa ha huna wa ashara ila sadri laabtiisii ficneed laabteed ma tiisii ficneed ayuu gacanta ku fiiqay wuxuu taqwadu laabti ku dhex jirtaa wa ashara saddex goorna oo tilmaamay laabta iyo arka waxa ku dhex jira
alaa yaclamu man khalaq wahuwa latiifu lkhabiir. ilaahay uunbaa og waxa qofka qalbigiisa ku jira, inuu yahay munaafiq, inuu yahay mu'min, inuu yahay gaal, inuu yahay dulka islaam hooska gaal. ma garan karno. ka ugu salaad badan inuu ugu gaalsan yahay anaku ma garan karno. ka ugu salaad yari inuu ugu iimaan badan yahay anaku ma garan karno. kullu dalika fi cilmi illah almuxiitu bikulli shay. ilaaha wax walba og baa og, anaku laakiin daahirkan qaadanayna. okay, intaas marka aan ka baxo waxaan u imanaynaa mawduuca aan u socdo ah inaan ka hadlo mashaakil ka jira maanta Soomaaliya. kow, horta Soomaaliya walaalayaal brobleemyada haysta dadkeenu wax badan bay ku macneeyaan. qaar qabiil way ku macneeyaan, qaarna waxay ku macneeyaan federalismiga, qaarna waxay ku macneeyaan shabaab, qaarna waxay ku macneeyaan tadakhulka faragelinta dibadeed ee Soomaaliya lagu hayo, qaar waxay ku macneeyaan Ethiopia inay mushkiladba tahay, qaar waxay ku macneeyaan maaragtay wadanada carabta, qaar waxay ku macneeyaan inay weli gaaladu u soo jeesan gaar ahaan Maraykanka iyo reer Yurub inay Soomaaliya solution laga helo problem Soomaaliya. qaar waxay ku macneeyaan problemka Soomaaliya haysta dagaalka sokeeye maaragtay aan macno lahayn, qabiilka maaha, dagaalka sokeeye xarbi ahliga aan macno lahayn, dhammaad aan lahayn. qaar waxay ku macneeyaan maxaa dhahdaa baayac mushtarka oo aan rabin inay dowlad dhalato fiican, lanna waxay ku dhargeen dowlad la-aan bay ku dhargeen, markaa ma rabaa inay dowlad imato. qaar waxay ku macneeyaan maxaanku idhaahdaa fikirka xumaaday ee Soomaalida maaragtay dowladnimada aan la fahamsanayn. wax badan baa lagu macneeyaa, laakiin anigu waxaan rabaa maanta inaan mushkiladda Soomaalida inii sheego inay 4 meelood ka imanayso. waxaan u bixiyey mushkiladda afaraysan. okay, mushkiladda Soomaalida horta waxaa jira wax dhahdo wadan walba waxaa jira wax dhahdo alfikra almarkaziya. wadan walba wuxuu leeyahay fikrad central ah oo laga dhaqaaqa. marka la fikirayo qofku fikrad buu ka dhaqaaqa, iskama fikiro. kadaaratid nin fikiraya, nin wadaad oo fikiraya, hadaaratid fikradda markazigu waa quraanka iyo sunnaha wax ka dhaqaaqaya. wadaadada gudahooga haddaa u yimatid ninka salafiga markuu fikirayo caqiidadu ka dhaqaaqa. ninka haddaad aragtid maxaanku idhahdaa tabliiqiga hadduu fikirayo ruuxda iyo iimaan in la yeesho iyo allah laga cabsado adduunka la iska tagay waa taa fikra markaziga. haddaad aragtid matalan ninka maxaanku idhahdaa qolooyinkani maaragtay rumaysan inaan islaamka lasoo cesho oo lagu soo cesho xukunka ilaahay lasoo cesho, sida maaragtay jamaacadan assaadicuuna bilxaq la dhahdo imika soo baxday oo weligeed jiraysa, iyo qaar ikhwaana muslimiinta kamid a waxay ka dhaqaaqaan xaakimiyadda in kitaabkii lagu soo celiyo adduunka, alxaakimiya wax dhahdo, xukunka in ilaahay loo dhiibo. okay, qaar kale waxay ka dhaqaaqaan in siyaasaddu ay xumaato oo siyaasadda la hagaajiyo. waxaas oo dhan wax weeyaan waa fikra markaziya. ninka cilmaanigana muxuu ka dhaqaaqaa? wuxuu ka dhaqaaqaa uu leeyahay muslimiinta dhibaatada haysata wax weeyaan diintii iyo dowladdii baa isku laaqatay, aan kala saarno, diintana maskiidkan ku celino, dowladdan baarlamankaan geyno. haddaan sidaa ku guulaysano oo diintana ninka diin doonaya uu maskiidka tago, ninka dowlad doonayana uu tago baarlamanka, waan kala habayna wixii. okay, marka fikra markaziyada wataa waa fikradda qofka uu ku duurayo ee noloshiisa oo dhan ba uu aaminsan yahay inay tahay xalkii. ummaduna fikrad markaziya leedahay. مثلا أمتنا إسلامكم مركو النبي صوب حي فكرة مركزية وحو كدقاء الإسلام. كارل ماركس كومونيزم شيوعية بكدقاء مركا فكرة مركزية جرت هاد إيا جار لغا دقاقو ما حيث هيداتك الصومالي دا فكرة دودة مركزية سانترك وطالة دمان قف كستو الصوماليا مركو فكرة يو من حيث كسر على مالك لكوكي علمايو وقبيل كوير وحاجة قبيل كنا لابو وكلا بحا وحاجة واحد هذا القبيلة هي القبيلة. قبيلة دوا محي قبيلة دوا ظاهرة وفينمن إلهي بأبوري waxay ka mid tahay systemka ummadda Soomaalida oo Ilaahay markuu ina abuuray bini aadamka inta badan waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila wa Ilaahay reera iyo qola inaga dhignay. marka qabiilku waa daahiro Ilaahay abuuray oo koonka ka mid ah. qofkuna ma noolaan karo bila hadii daahira way jirtaa, laakiin problemku waa maxay? qofku inay qabyaaladu ka noqoto fikrad waa taa weeyaan. imika nin Soomaaliya hadii la yiraahdo dawlad baa la sameeyaa Soomaaliya wuxuu ku leeyahay dawladda iyo madax ka noqday hebel baa ka noqday reer hebel baa noqday madaxiisa ku soo dhacay. dawladda waxa madax ka noqday hebel waa qof wuxuu ku noqday shaqo uu qabtay iyo dadaal uu galay iyo wuxuu doonaha isticmaalo, laakiin qofka Soomaaliga hebel egal hebel yusawi hebel wuxuu u dhigmaa reer. okay, dawladdii baa la qaybinayaa. dawladdii marka la qaybinayo waa cad
cadka inoo qaybi waa cad bay dowladdu arkeen dowladda markii cadka loo qaybiyo waxaa loo qaybinaya reerihii baa loo qaybinaya waxaa leeyahay wasaaradda biyaha waxaa loo dhiibay hebel waxaa loo dhiibay reer hebel waa fikra markaziya ayaana waxaan dhegeysanaya dhalinyaro la baxday magaca maaragtay magaalo ku taala geeska Afrika marka waxay ka sheekeynayaan reerka magaalada u badan waxay leeyihiin reerkeenu marka uu wax qaybtamayo sidii dhaqankii cadka aan u qaybtano waxaan la helay maaha cad waxaan la helay waa dowlad waa siyaasad weeyaan waa dad doonaya dhakhtar in loo furo iskuul in loo furo in dadkan la habeeyo la nidaamiyo maaha qabiil cad maaha la soo ritay maaha wax la soo helay sidaan u qaybtami jirnay aan u qaybtana dowladda ma soconayso fikra almarkaziya hadday qabiil tahay dowladii ma jirayso fikra almarkaziya waa inay noqoto dowlad fikra almarkaziya waa inay noqoto fikrad waa inay noqoto maaha dhiig waa inay fikrad noqoto maanka ka soo maaxaday oo ay aqoon-yahan soo saareen oo la yidhi fikradan baan Soomaali ka iibsami kartaa fikradan ha ka iibina laakiin dhiig aan hayn dhiigu ma sameeyo dowlad tawa in la sagarno ma jirto dowlad adduunka waxaa jirta dowladda magac dhiig leh sida Sacuudi oo kale uu dhaqaaqi leeyahay Israa'iil oo kale waa dowlad qabiila waa dhaqaaqi leedahay Israa'iil dad badan inay horumar gaadhin ma horumar gaadhin Israa'iil waxay horumar ku gaadhay carabta ay la dagaalamayso iyo gargaar ay cadow ka helayso dad kale laakiin dowlad wax weeyaan dhiig ku dhisan maaha dowlad dimuqraad ah maaha dowlad samaysa carabtii dhulka lahayd asalka ahayd iyo ka yimid xataa ma samayso dadka wadankii koonfur Afrika oranay dhiig buu ku yaalay dhiig dadka cad baa ka sareeyay dadka madow markuu yimiday Nelson Mandela oo ka tanaasulay mooygu waa inay cadaanka laayaan wuxuu keenay fikrad ah waa inaan ka tanaasulna dhiigga maxaan qaadanaa han wada noolaano taayush silmi dadku inay wada noolaadaan hadii الفكرة المركزية marka Soomaaliya problemka haysta magaca doono bixi federalismku waa qabiil dowlad goboleedku waa qabiil maxaan ku raahdaa dowladaha hoosoosta waa qabiil wax wal oo la qabanay wasiiraduhu waa qabiil shirkaduhu waa qabiil wax aan qabiil hayn ma jiro hatta diintii baa qabiil noqotay culimada dad baa arkaysa sheekhan baan jecel maxaa jeceshahay waa tolkay hay hadduu fiican yahay waa tolkay fanaanadan waan jecelahay maxaa yeelay waa tolkay diin musiiga uu naca laakiin fanaanada uu difaaca ama fanaanka uu difaaca idan waa fikra almarkaziya maxay noqotay Soomaali maxaa jirta waa qabiil ta koobaad marka wata Soomaaliya hadii lagu weydiiyo maxaa mushkilada waxa leedahay mushkilada Soomaalidu waxa ka luntay busolki maxaa ka lumiyay fikradda ay aaminsan yihiin ee centralka oo u baahan in la bedelo see loo bedelo waa soo soconaa maxaa imika yaala marka waxa yaala waa qabiil waa koob labo Soomaaliya problemka yaala waa tarkiibi waa talabaad at-tarkiib wala Soomaaliya problemka yaala maaha qabsiyeeti maaha waxana sheegayna maaha xabada ma oran karno Soomaaliya qabiil baa yaala problemku ma oran karno Ethiopia Soomaaliya faraha ku haysa ma oran karno Soomaaliya dagaal baa ka socayso kale ma oran karno Soomaaliya fargelin baa dibadda laga hayaa may Soomaaliya mushkilada haystay waa mushkilad isdultaal waa complex waa muaqqad waa murakkab waa isdultaal murakkabkaas seeb isku dultaala waxa isku dultaala Soomaaliya waxa haysta mashaakil saddexaysan marka tarkiibka la dhex tago oo mid uu yahay iyada mid uu yahay fargelid dibadeed mid saddexaadina uu yahay fahmi la'aan sida waxan loo gestiyon loo wado waxa soo isku biiray ayaa Soomaaliya problem ku haysta Soomaaliya waa run fargelin xoog la lagu hayaa fargelinta waxa keenaya afar arrimood Soomaaliya in la fargeliyo afar arrimood baa keenaysa arinta koobaad ee keenaysa wax weeyaan Soomaaliya waxa ka buuxa maaratay barwaaqo aan qeyr caadi ah oo adduunku og yahay marka Soomaaliya xataa aan dhaafo dhulka Soomaalidu ay leedahay waa wax weyn wax yaala Soomaaliya waxaas maxaa loogu talagalay waa la qormisanayaa arinta labaad oo Soomaaliya yaala wax weeyaan xeeb aan caadi ahayn oo istaraatiijikal ah taala min Kismaayo ilaa Zeeland وحب وين وقاد ويا بدن أريد صدحات الصومالية تعالى وحيان وضد اسكو ميدا دين لغة جغرافي اسكو كلتشر وح يكون كلا دويهين ما بجربها هبيراتين حتى عقائده هوسي واسكو دبيت أريد أفراد الصومالية ماشا أي أطهى لو محي الصومالية قدوته وبلشو haddii ay hesho fursad dinamikiya
waxay samaynayaan wax madaxaaga aan ku jirin waa dadka maanta ka sameeya baac mushtarka macnaha leh ee ka jira koonfurta Afrika ee ka jira Tanzania ee ka jira Uganda ee ka jira Zaire waddan jira Congo ee ka jira Kenya ee ka jira Soomaaliya meel kasta Soomaaliya meel kasta jira ee ka jira Djibouti ee noloshii dadka reer Djibouti xitaa bedelay isweydiin dadka maxay yihiin ee Ethiopia tagay ee Addis Ababa bedelay ee Suudaan koonfurta Suudaan tagay ee bedelay ee Mareykanka Minnesota waxay ka sameeyeen dadku ay yaaban yihiin maaragtay Toronto Edmonton Canada adduunko dhan meel kastay tagaan waa dadka ilhaan gabadha la dhacdo baarlamaanka gashay kuwa carab oo imaarada iyo caay maadooto yani way xaasidiin wayaan ya gabadha xijaaban tahay marna ma xijaabno isaga waxa kala socday marna xijaabanta marna xijaabneen laakiin ilhaan waxay ku guuleysatay inay noqoto gabadh baarlamaanka kongareeska gashay Soomaaliya iyo ku dhalatay Kenya kongareeska joogta waxa kamid ah wasiirka Canada immigration wasiir weeyaan baarlamaanka dowladda hoose ee gobolka maaragtay Ontario Toronto Faisal Nado oo soo galay in kala diyaara gabadh baan ku soo arkay magaalada Edmonton oo maaragtay professorka jaamacadda ma aha qolooyinkan meelahan meelaystay hay'adahan ku sharaxan Djibouti ma waa dad iyagu isnooleynaya weeyaan marka qofkan dinamiig ah ee wax samayn kara markuu helo duruuf wanaagsan hadduu dalkiisa ku helana anu hore inagu sheegay sano gudaheeda Afrika oo dhan bay hogaaminayaan marka waxaas oo dhan iyo Soomaaliya loo dagaal waa tarkiib waxba la diiday marka arinta koobaadi waa taa weyn Soomaaliya tarkiibka waa problem tarkiibi ah inaan u fikirin si fudud wuxuu dhacdaa Malik bin Nabi rahimahullah dadka u fikira si fudud xal ma keenan dadka u fikira ma dhici karto xal lama heli karo idhaadana xal ma keenan iyaa keena dadka garta inuu xalku adag yahay laakiin dhici karo xalka Soomaaliya adag yahay laakiin dhici kara ana waxba ka sheegi doonaa arinta saddexaad ee problemka Soomaaliya haysta waa maxay waa adamul fahmi lima yajibu fahmuhu waxa la fahmi laayahay wixii in la fahmaha هذه مشكلة وحي إن لفهمها إيا لفهم لا يا وحا إن لفهمها ومحي ور صوماليا محاكم مقن ماتا صوماليا محاكم مقن صوماليا دقالك هم مقنو صوماليا حولك هم مقنو صوماليا كم مقنو ضدي صوماليا حكم مقنو صوماليا وحا كم مقن وحا مهمة ومحي والدولة إذن تدخل وحي فهمي لا محي إنها مقن أرنتا دولة با إنها مقن وصوماليا كم مقن وحمر كبحي كريلا oo loo diidan yahay inay xuduudda xamar dhaafto oo ay u tabto dhulkii kaleeto waxa loogu diidan yahayna waa wax cad weeyaan marka Soomaaliya problemkooga lambar dhabarka ka wax weeyaan tarkiibka markaan sheegaynay faragelintu waa kamid faragelintaas inta aan soo dhaafay waxaan ugu laamayaa faragelintu Soomaaliya lagu hayo waa faragelin iyana complicated waa mucaqad waa murakkab yaa ku haya waxa ku haya Arab batroolkiina la dagaalamaya Soomaaliya yaala gaaska la dagaalamaya doonaya inay gaaska ogaadeenayaan Soomaaliya galbeed yaala oo ku soo inay xoreystaan oo ay meel marsadaan oo meelaha ay kala baxaan ku tala jira weeyaan oo una la qarin oo laga sheekeeyo shirka caalamiga laga sheekeeyo taas la rabaa waxa weeyaan Soomaaliya Carabta way la dagaalamayaan Afrikaanka jaarka la ah oo Uganda ugu horeysana way la dagaalamayaan Uganda ma rabto in Soomaaliya ay ka baxaan inay Soomaaliya dib u soo noqoto ma rabto Rwanda ma rabto Kenya ma rabto Ethiopia ma rabaan waxaan la sameeyay waa aflaam weeyaan ma rabaan marka taasina waa mid weeyaan midda saddexaad faragelintu waxa weeyaan waa faragelin caalami ah waxa soo ka hayst awood caalami ah marka Mareykanka inta iska soo takhalusayaan iyo Shiinaha iyo meeshan ninka kale oo kala alnaya waxa la rabaa in la hayo saal lagu hayo sida iska hadaan dhan looma dhaqaajinayo dadaalka la siiyay dowladda kale lama siinayo waa sheegi doona waxa loogu diiday marka waa tarkiibka haysta okay waxaan u imanay Soomaaliya maxaa ka maqan maxaa fahmi laanahay ninka jooga Kismaayo ninka jooga maxaan radaa Baydhabo ninka jooga maxaan ku radaa maarta Puntland jooga ninka jooga maxaan ku radaa Khaatamo meesha sheegatay ninka jooga maxaan ku radaa Xamar ninka jooga meel kasti ka jooga Canada Mareykanka marka aad ag fadhiisatay markay maqaaxiyaha fadhiya sheekaysanayaan waxaad dhageysanaysaa ninku haduu yahay
reer puntland wuxuu ka sheekeynayaa puntland hadduu yahay reer maaragtay kismaayo wuxuu ka sheekeynaya okay jubbada maxayga balaa waxun baa laga hadlayaa meelaha baan waan dhegdhegeeyaa yastamicuun ayadda qur-aanka waxay xadaan maaragtay dhegta maaragtay shahaadada wax ku xadaantii kale ayaan sameeyaa maan dhowtoon aan joogay magaalo maaragtay ku taala Toronto dhacdo ku taala Canada meel maqaaxiyaan fadhinay dad gobol maqaaxiyaha la ayaa deganaa ayaa meesha fadhiyo sheekaysanayeen waxaan fadhinay muddo saacad iyo badha shaah baan ku cabaynay iyo keeg yar baan ka cunaynay waxaan dhegeysanayay qola hadlaysa qolada gobol bay ka soo jeedaan meesha wax ka baxsan ka hadlay su'aal baan markaa igu dhalatay waxaan is weydiinayay qofka Soomaaliga maxaa ka maqan ma fahamsano intiisa ugu badan marka waxaan u bixiyay marka qaacidada waxay adamul fahm lima yajibu fahmuhu wixii in la fahmo aha iyaan la fahamsanin Soomaaliya waxa ugu weyn ee ka maqan waa dawlad wuxuu dhahdaa Jean-Jacques Rousseau akbar ibdaac Rousseau ibdaac waa curinta ugu weyn ee bini aadan uu keenay waa dawlad wax dawlad ka fiican uu insaan sameeyay ma jirto marka dawlad la'aan waa nolol la'aan weeyaan waxa loo yaqaan al-faraaq marka waxa lagu bedelay dawlad la'aantii dawlad yar yar oo qabaa'ila oo federaal ah oo reera ah oo mid kale ay la dagaalamayso oo sidii dawladihii Andalus ka jiri jiray Spain iyo Portugal islaamku xukumayay oo ay gaaladu la kala xiriiraan oo nin walba meeshiisa lagu la xidho oo nin meeshiisa laga soo casuumo oo carabtu ay la xiriiraan oo ay soo casuumaan iyagoon ilaalinin wixii dul ahaan jiray marka anigu ma rabo inaan galo federalismigu munoo fiicay mise ma fiicno waxaas waxay u baahan tahay dadka Soomaalida u taala laakiin waxyaalada aan akhrin karayo saqaaf ahaan iyo cilmi ahaan taas ka mid ah arinta afraad ee Soomaaliya dhibaatada ku haysa waa maxay waxa weeyaan nukhbad bila dawla arinta afraad ee Soomaaliya ka arkay waxa weeyaan an-nukhbatu bila dur nukhbadu waayo nukhbadu waa labeenta bulshada nukhbadu waxa rool ah Soomaaliya kuma leh hadday ku leedahayna waxay daba socdaan saddex shay si fiican la isku dhaysto nukhbada Soomaaliya nukhba waxa dhada waa labeenta bulshada مثلا aqoonyahanku waa nukhbo siyaasigu waa nukhbo waa elite waa labeen caalimku waa nukhbo waa labeen fanaanku waa nukhbo waa labeen maxaan ku dhahdaa suldaanku amba waxa doon u bixi malaaqo amba ugaasku amba maaragtay boqorku amba islaamku magacda badan bixinay waxaas oo dhani waxa dhahdaa waa nukhbo nukhbad cilmiya nukhbad siyaasiya nukhbad fikriya nukhbad diiniya nukhbad ijtimaaciya oo dhinacii bulshada hoos ah intaas oo dhan nukhbka ah nin walba roolkiisii ma ciyaaree wuxuu daba socdaa saddex shay maxay tahay aan arkay anugu kow waxa ugu horeeya oo nin walba daba socday waa maslaxad waa interes nin walba meel baa xanjo loogu dhajiyey xanjadaa buu inuu soo goosta doonaya kayfa asil seenu gaadha waa mushkilad qofka eliitka ah waa inuu isdhaafo weyaan waa inuu calooshana dhaafo cawradana dhaafo haddii aragtid nin naaga badan ku guursanayo naago magaalo kasta naag ku guursanayo hada laa yufakir ninkaas wuxuu dhex fadhiyaa bawdooyin buu dhex fadhiyaa nin bawdo dhex fadhiya caqli ma leh ninka labaad ee problemka waxa weeyaan ninku hadduu had iyo jeer ka fikiraya maada aakul maxaan cunaa hoteelkeen caawa ka soo casheeyaa malabkeen cunaa maxaan sameeyaa hada aydan laa yufakir qofku waa inuu maskaxdu daasho waa inuu wax keeno cilmiya waa inuu dadaalo marka nukhbadu maslaxad ninka u nool waxaan daba socdaa labo waxay noqdeen nukhbadihii waxay daba joogaan fikradii markasiga ee qabiilka ah nin dhan oo aqoon-yahana oo jaamacad dhiga intuu soo dhaadhaco reer u fikraya wuxuu ka yimid min adarajati alaclaa ila reer buu yimid maahan taasana arrinta saddexaad ee haysato waa maxay nukhbadii oo dhan waxay dooneen kursi ninkan waxaa loo baahan yahay mufakir siyaasi ah aqoon-yahan siyaasi ah sida ninka aan sheegay Fukuyama ninkado ama Samuel Huntington maxay raggaasi waa aqoon-yahano siyaasiyiin laakiin siyaasadda ma galaan waa lagu laama waa reference waa maraajic waa la akhriyaa waxay qoraan waa la dhageystaa waxay dhahdaan waa laga faa'iidaystaa laakiin kursi kuma dagaalamaan ninka aqoon-yahankii waa inuu waxan ka weynaado weyaan dad baa jira ducaada oon dacwadda ka wada shaqaynayna muddo fara badan oo siyaasadda iyo cilmiga taxallin jirnay raggii waxaan wada arkay wada doonaya iminka wada murashaxiinka Soomaaliya yaa akhi hadafku maaha hadafku wax weeyaan waa inaan wax bedelo waa sax anaku iyo sanbaa sameeyay Djibouti dagaal siyaasi aan galay laakiin anigu la ufakir ana kun shay
في السياسة، أريد أن أكون شيء ما وراء السياسة، وشيء لا بيك نتاي أن تكون في السياسة وأن تكون ما وراء السياسة. إلى أن نقطة تقف سياسة كتنبيه oo dadka u sharxa u macneeya tusa diida doona afkaar soo bandhiga inaad tirahdid waxaan doonaya anigu waxaan rabaa tirahdid laba shay. marka dadka noocaas ahay ummadda madaxooga qarxin laha iyo intay qalinkii dhigeen cimaamadiina dhigeen cilmigiina dhigeen bay yidhahdeen kursi baan doonaynaa. idan ummaddu waxay oranaysaa dadka oo dhan kursi buu doonaya, kii maaragtay waardiyaha iyo kii maaragtay dhulka harayey iyo gabadhii guryaha masaxaysay iyo kii maaragtay waxba aqoon iyo kii sheekh ahaa iyo kii wax yaqaanay baarlamaanka isku dirayaan isugu yimaadeen. ninkaasi wuxuu ku leeyahay ana uriid an akuuna shay. idan markaasi ninkii nukhbadii waa bilaa dowr. waxaan u baahannahay nukhbatun taktub, nukhba wax qorta, nukhbatun tuxallil, nukhba anliis keenta, labeen etid samaysa anliis keenta, nukhbatun tukhatit, nukhbad maaragtay planification samaysa oo sargoysa nolosha. waxaan u baahannahay fanaan يقول الحق ربط الشيغة ما هجعيل كهيسا إيا مدحضة بنت الشيغة أهيسا ومارت إياك أسيدة كباها أسيدة ومارت ما نتي للدورتي بدحوينة فرماجه وحنكوله فنانيته أمانين فرماجه لأنه أمانته واحد دشي لما بدحوينه أنا قانو محمد سياد برا ويد شي أمانته لا ونحارسته واحد كل شيء وحلولي أبيه قرشده أبو المعرفة وحو اسمه دي أبيه قرشده. nin baa ii warramay maalin dhaweyt wuxuu yidhi nin ay ilmaadeer ahayn baa ku yidhi waa siyaad horta maxaad uga heshaa marka aabba loo dhado maxaad ugu farxda aabba matiida dadka ma aabba u tahay madaxweynaad tahay wuxuu dhahdo haddaad aabba ii ictiraafsani dadka ii ictiraafsan dad baa ii jecel aabba igale ii daa buuri okay aabbihii garashada markii la yidhi qur-aanka markaad ku noqotid aabbaha garashadu waa ilaahay lianna garashadu waa addoon waa waxna la siibeen callama alisaana maa lam yaclam iyo aabba kaa markaa garashada ilaahay. marka waan qaadnay aabbihii garashadan ka dhignay. waxaan oran karnaa aabbihii aqoonta asaasay iskoolada dhisay laakiin waxba ma dhisin ba hargeysa iyadoo hargeysadii giirtu ka tagay ayuu wadda ka seebara ka tagay iyadoo boosaaso ayuu ka tagay waxba kama qaban. xamarun baa wax laga qabto laga dhisay waxba ma qaban. dowladnimo way jirtay laakiin wax ma qaban. ciidan weyn uu sameeyey laakiin wax ma qaban. jidadkii baa jajaban. marka inaa xishoono weyn annaku waan dhaafnay ba aabihii garashada Jabuuti markaan doonay inaan Ismaaciil mar amaano waxaan oranay waxaa tahay adigu aabihii garashada ma tidee waxaa tahay aabbaha runta aabaheedu runta abu sidq runtu ma kala adeeg ka imata waxaan kugu bedilana maba haysanaba ma bedeli karnaa maya iska daa maanta barina ma jirin adeeg waa fanaan waxa soo wada maanta iska dhaafay markaa buu qoslayaa markaa baa konton kun oo fara $300 bishii siiya. marka waxaan ku idhi dadkii xafladdan kala qayb galay farmaajo ammaanta ka day laakiin lama dhegeysan waa la ammaanay ilaa imika. هذه مشكلة قفك بني آدم كأمانته ويدشها gaar ahaan markuu madaxweynaha rub muuday waxaan qofka waa la tawjiihiyaa wuxuu sax ku sheegay lahaana sax baa tahay laakiin maantana qalad baa tahay. marka waxaan uga jeedaa waxaan fanaankiina bilaa door buu noqday. okay sheekhina doorkiisu wuxuu soo dhaafi waayay inuu ka sheekeeyo xaydka iyo nifaaska iyo soonka iyo zakada iyo salaada iyo quraanka iyo jacaylka iyo halkaaba uu dhaafi kari waayay. wadaadkiina aayadihii ilaa xukunka suuratu nisaa iyo suuratu maa'ida iyo suuratu baqara oo iska dhaafay kontraaydi cabdigi aqoonyahankiina reerkiisii buu soo dhaafi waayay. reerkiiba xaflad ugu sameynaya London, reerkiiba xaflad ugu sameynaya Toronto, reerkiiba xaflad ugu sameynaya subxaanallahi alcadiim. markaas taasi marka maxay noqotay nukhbadiina waxay noqotay bilaa dowr. Soomaaliya problemka haysta waa tan weeyaan walaalayaal. Yurub horumar ma gaadhin ilaa ay nukhbadu xorowday. qofki eliidkii waa inuu xoroobo. marka arinta aan aad maanta uga hadlayo waxyaan Soomaaliya waxa haysta afarta mushkiladood waxay u baahan yihiin xal. maxaa xala saddex arrimood baa soo bandhigaya oo aan arkay waa xal. halkan uma soo bandhigayo in la dhegeysto lagu farxo. waan ogahay cajaladaha aan qabanay inay dhegeystaan madaxdu. cajaladii maanta inuu Jabuuti ka qabtay intaas oo telefoon baa yimid oo qaar ay ka yimaadeen sida hore noogu sheegay xaaska madaxweynaha oo leeyahay maartay ma imkana oo siiba dheeraato meel ka si fog bay telefoonadu ka yimaadeen bilaa iyo telefoonku u socdaan la maanta waxa laga hadlayaa arintaas ka hadashay kaashka tooday hebelaya kaashka tootay hebela marka alxamdulillah in la dhageysto shaki ma leh laakiin in xal laga soo baxan rabaano aniga problemku maaha
qof isma hayno anigu qaar baa dhammaan isma hayno qof anigu qof col lama yihin laakiin waxaan la colahay mawduuc dulmi la dhahdo waxaan la colahay mawduuc idhahdo wadan la boobayo waxaan colahay mawduuc idhahdo dhul la burburinayo waxaan xabsi u galay waxaan diiday sida loo shaqaynayo sida loo socdo waxaan qaxooti ugu ahay dibadda waxa weeyaan waan karayaa inaan saan doono u noolaado waxbaan diidanahay maaha bini aadan waxaan diidanahay hab markaa saaba in la garto solutionka markaa soo bandhigayo hala dhegeysto madaxda waan la hadlayaa shicibka waan la hadlayaa culimada la hadlayaa marka waxaan idhi Soomaaliya saddex hal bay u baahan tahay kow Soomaaliya waxay u baahan tahay in la bedelo fikirka markaziga dastuurka maaragtay weli hadda aan dhammaan dastuurka la wado dhammaan dastuur dhammaan waa la qorayaa dastuurka Soomaaliya maaha xal dastuurka Soomaaliya xal maaha maxkamadda dastuurka Soomaaliya xal maaha madaxweyne inaan sameeyno xal maaha baarlamaan inaan sameeyno xal maaha waxaasi waa xalal hoose weeyaan xalka asaasiga wax weeyaan inaan ka guurno fikrad oo nu guurno fikrad kow maxaan ka guurnaa fikradda qabiilka ka guurno ما أها فكرة قبيلك هنأصنه سيدي محمد سعد برا هندوقنا معها الله يرحمه وهالك وصلنا كلا شقينا معها وحاربها محمد سعد برا وآسي ودوقي لكن وممكن تمر الدب وقاته اسماعيل عمر قال وانا خبط بخلني قروح بدن ويقول أنا مرة بوطن قبيل لك عايزته لكن ما كهريسي يكتبنا قبيل ما هو الرير سوكايو وفاميلي جيسي دولتك وبحصنه فاميلي جيسي وأباي أدرك وحاي يقعلك ما تعرفسنه مركا dadka walaalka maaha beento hadalka maaha ficilka weeyaan maxaan u baahnaa ha ka guurno fikradda markaziga reernimada say u dhidashahay baa ka guurno hanu guurno fikradda markaziga ah fikratu dawla pensée d'état inaan qaadano fikratu dawla war waa dawlad baa loo baahayay wadaadku dawlad buu baahayay ilmuhu dawlad buu baahayay inatu dawlad buu baahan tahay madaxweynuhu dawlad buu baahan yahay ciyaalkaagu dawlad buu baahan yihiin Canada marka dadku dhex joogaan inay dawlad haystaan way garanayaan maaha dawlad kartoona maaha dawlad waraaqada maaha dawlad loo cabsoonaya dunta maaha dawladda xataa haddii ay dhacdo xukuumaddu powerku waxay iska jiraysaa weligeed dalka Belgiga 9 bilood ra'iisul wasaare la sameyn karo waa dawlad laakiin waddanka dawlad way jirtaa dawladdu maaha dadka xukuma dawladdu wax ka baxsan annagu haddaan dawladdiinahay maaha dawladdu adigana maaha anigana maaha waa wax fikrada oon meel intaas la dhigno aan dhisno oon hagaajino oon oran horta taan dhisano federalismiga way ka horeysaa qabyaaladda way ka horeysaa xamaraasimada puntlandnimada kismaayo maaragtay gobolada waxaanaad sameyn way ka horeysaa dawladdu waxa weeyaan waa wax kor inta loo dhisto caqdi lagu dhiso contract heshiis baa lagu dhistaa waxaana ku heshiiyo heshiiska dhista dadka loo yaqaano Soomaalidana ayaa hor jooga eliidka inay sheegay labeentana halkee ka imanaysaa shantii qole ka imanaysaa waa inay shantan qole ka baxaan waxaan hooso kora u kacaan mid lixaad baan inagu darayaa oo labeenta ku jirta waa bay'u shirka waa labeen muhiim ah waliba Soomaalida waa labeen muhiim ah waa labeen naajaxday sida loo sameeyo lacag laakiin ku najixi weeyday sida loo sameeyo horumar meel gaajoonaysa hadda horumar ka sameeysid adbood gaajoonaysa meel caafimaadku duusan yahay adiga dhamay kalido ka xunaan hindiga ku ordaysa xumasbi waxaad qabatay ma jirto iskuul ciyaalkaagu dibadda wad geynaysaa baasaboorkiina u qaadaysaa Tanzania Djibouti lacag baa kaga baxaysa baasaboor iibinaysaa markaa baad ciyaalkaaga dibadda u diraysaa Turkiga iyo Shiinaha iyo u diraysaa laakiin Soomaaliya gudaheeda laga sameyn karaa jaamacado macna leh waliba maanta raggan maaragtay lacagta sameeyay Soomaaliya sameyn karaya marka maxaan u baahanahay al-intiqaal min fikra ila fikra ha ka guurno fikrad hanu guurno fikrad arinta labaad ee Soomaaliya u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay tagyiir inuu isbedel dhaco dhinaceedu isbedelkaasi ka dhacaya isbedelkaasi Soomaaliya waa inuu ka dhaco dhinaca cilaaqaadka xiriirka waa inaan xadidno Soomaaliya cadowgeedu waayo Soomaaliya waa cadow dad marka wax la soo cadowga Soomaaliya waa Itoobiya dad baa la soo cadowga Soomaaliya waa Carabta waa Imaaraadka iyo Sacuudiga dad baa la soo Soomaaliya cadowgeedu waa Uganda ma Soomaaliya cadowgeedu waa Yurub iyo Mareykan may cadowga Soomaaliya inta midna maaha cadowga Soomaaliya waxa cadow ah qofka Soomaaliga ee rabin inay Soomaaliya wax noqoto waa cadow Soomaaliya ku yahay marka maxaan rabnaa inaan anaku iska saarno cuqdaduna Soomaaliya waa laba nooc waa nooc wanaaga laakiin positive oo noqotay negative oo maxay isla weeridan anaku haddaan nahay Soomaali anaku haddaan nahay reer hebel
annaku haddaan nahay maxay dada been baan isku sheegnay waxaan ahayn baan iska dhaadhicinay waxbana noqon weyne iyo cuqdada labaad ee kaleetaa adduunkan dad kala haystee maxaan qaban karnaa labadaa in ka baxno waa inaan aamino inaan cadowgeenu uu yahay jaahilnimada jaahil baan nahay maxaan jaahil ka nahay waxa aan nahay baan jaahil ka nahay istuwaarkeena taariikhdeena jaahil ka nahay marka taasina waa inaan ka baxno oo maxaan u baxnaa macrif aan isgaranno ma naxno annaku maxaan nahay iyaa inaga soo horjeeda muxuu inooga soo horjeedaa maxaan yeeli karnaa si aan waxaan uga hortagno xataa jaamicadahan boqolka waa boqol jaamicadood wax laga tiriyay Soomaaliya waxa ka jira boqolkan jaamicadood mashaakilka Soomaalida ma baaraan waxaan jirin bay baaraan iminka Canada markaan joogo jaamicaadka markaan akhriyo waxyaalaha lagu baaro waxaa ka mid ah problemyada Canada ka dhaca ma aha gobol problemyada provinsiyada ka dhaca gobolada yar hoos hoose ka dhaca sida matalan Quebec gaar ahaan magaalada degan ee Gatineau mushkilada dikadaha ama jidadka la maray maxaa haysta buu nin ku sameeyaa master xalna uu keenaya dawladdu ka bay qaadanaysaa way eegaysaa marka adiga waxa laga rabaa istastigu qof taariikhda baaraya wadankani dadka ku dhashay say u dhashaan goorma dhashaan halkay ku dhashaan maxay u dhashaan dadada waxaas baaraya dadka baaras intay biirayaan 20 sano soo socota inta maxaa ku biiraya magaalada degan ee Gatineau oo magaalo yar diraasa lagu sameeyay diraasadii waxa ka dhashay in biyaha 20 sano soo socda la hagaajiyo koorantadii wixii dhan istaraatiiji la sameeyo oo la dhigay wala dhameeyay isbuucii dhow baa laga farbaxay waxaas oo dhan diraasada yaa keenay arday jaamacadaha keenay marka waxa loo baahan yahay inaad taas sameeyno arrinta saddexaad oo xalka ah wax weeyaan xalka Soomaaliya waxay u baahan tahay in shir la qabto wata arrinta aan u arkay markaa solution shirkaas in lagu qabto gudaha Soomaaliya Muqdisho loo yeero dhammaan dadka Soomaalida ah fadhigaas uu noqdo fadhi run la isku sheego oo laga hadlo arrimaha aan ka hadlaynay ee xaqiiqiga ah kadibna la keeno solution amali ah practical ah oo laga dhaqaaqo halkan ilaa 5 sano 5 sano gudaheega waa inay ku dhamaato doorasho waa in lagu qaban karo waxaas ma aha sax 4 sano ma aha sax tii shariifka loo dhiibay iyo tii xasan loo dhiibay iyo tii loo dhiibay farmaajo way socon weyday waa 5 iyo 4 waa 4 saddexaysan waa 12 sanadood 2 sano waa 10 sano 2 sano waa farmaajo ma sameyn karo inuu doorasho wadankoodna laga qaban qaabiyo Muqdishona doorasho laga qaban qaabin karin waxay u baahan tahay doorasho waxaas ma doorasho waxa ka horeeya in la sameeyo is-afgarad buuxa waxa ka horeeya isku tanaasul waxa ka horeeya inaan garanno inay dawladdu muhiim tahay waxa ka horeeya in eliitka iyo nuqbadu ay wada shaqeeyaan iyo dawladdu taasna waxa ka horeeya inuu qof kasta roolkiisa ciyaaro kullu dhalika yahtaaj ila hada ya ikhwani fillah taasaan u baahnay marka arrintaas aan ku dheeraaday waa arrintii Soomaaliya weeyaan intaasaan ka baxaya waxaan jecelahay inaan imaado Ethiopia Djibouti laakiin Djibouti dib baan dhayaa maxaa yeelay waa iyadu hadal dheer u baahan tahay oo u baahan ilaa iyo maartay 40 minute laakiin Ethiopia waxaan ka hadlayaa 3 arrimood oo cajiib ah Ethiopia waxaan ka hadlayaa wax weeyaan ninkan la yiraahdo Abiy Ahmed waana aqli badan laakiin hawsha sidoo u wado lama shaqeynaysa aqligiisa badan Abiy Ahmed waa aqli badan yahay laakiin shaqadiisu waxaan moodaa shaqo aan waafaqsanayn cilmiga maxaa yeelay inuu isbedel sameeyo geeska Afrika oo uu hogaamiyo Ethiopia geeska Afrika oo dhan buu doonayaa laakiin wuxuu ka bilaabayaa Eritrea Soomaaliya Eritrea Sudan Djibouti gudihiina problemyo badan baa ka jira Ethiopia inay infijarta laga cabsanayo inuu qarax ka dhaco shacbiga qaraxa shacbiga 3 shay baa keenaya waa koow waxa keenaya Ethiopia waxa ka dhacay tawrad revolutionka waxa waday Oromo waa la kiciyay way kacday Oromo laakiin lama fadhiisin Oromo ay kacba leeyahay fadhiiso waa la qaadaa Oromo waa in la fadhiisiyo kii kiciyay waa inuu fadhiisiyo iyaa kiciyay waxa kiciyay Abiy oo hoosta ka shaqeynayay Jawhar saaxiibkay iyo rakala iyaa kiciyay waa fikrad fiican bad aniguna waan la jiray tawradaas laakiin waxa dhacdaa العمل ما قبل الثورة هي العمل ما بعد الثورة وكل دوين شقة لقبت الريفولوشن كورت واحد واقع تطوالك إياه لكن ما كده عن محل اسمها دولة نمذا لو سويشها سيدي اسمها آية الله الخميني شعب جيسا وكعيي ولا كعي لكن مركو دور قبتي وفريسية عدو بوسمي
meel buu u jeediyey laakiin strategical baa dhigay marka waxaa la rabaa inay taa la fahmo ormada laga arrinta labaad ee muhiimka waxa waa Soomaalidu ma kicin barbaarta yaa kacday yar oo waxa samaysay wax yar oo fiican laakiin Soomaalidu ma kicin Soomaalida problemka Soomaaliya yaalon baa haysta fikratul qabiila haysta nin wanaagsan oo sida Abi Ahmed oo yimid Mustafa la dhaxdo laakiin ninka ma fahmayaan Soomaalidu oo ku horeeya iyaguna ka dambeeya okay waxa soo galay jabhadihii halganka soo galay taariikhiga sida waana lafta oo si fiican loo soo dhaweeyay mudan laano halgan toddobaad sano socday iyo soo dhaweeyay marka maxaa loo baahan yahay Soomaalidu waa inay saddex qolo isfahantay imika kow ragga gudaha taqyiirka ka sameeyay oo ay kamid yihiin barbaarta reer Dhabe iyo Mustafa iyo raggii maaratay waa wanaagsanaa ee halganka soo galay gobolada dhan ka soo galay waa kow labo jabhadda waana lafta iyo raggii hubka qaaday ee uu qaaday inay isbedel sameeyaan qolada saddexaad waayo waa odayaasha iyo culimada saddexdaa qolo waa inay fadhiistaan oo ay ka tashadaan ayaha gobolka Soomaalida ay laba su'aal isweydiiyaan cilaaqada iyaga dhexdooda xiriirka iyaga iyo Oromo iyo Anfarba ku dar Anfar iyo Oromo iyo dar waa inay ka hadlaan masiirkooda marka ay qareeraan si cilmiya jaamacadda jigjiga waa in loo fadhiisto si aqoon looga doodo maaha si iska hadal una maaha guriga waxaan fadhinay ugaas hebel iyo guriga boqor hebel iyo guriga boqor hebel dowladda lagama sheekeeyo dowladdu waxa laga sheekeeyaa meel dhaxdo jaamacad faculty macad research sameeya culimo loo dhiba aqoonyahan baa loo dhiba waxay keenana waa la qaataa wixii cilmiga ka mari karay waa la qaataa marka waxa loo baahan yahay aniga oo maaragtay reer hebel ma quraca anigoo ah nin Soomaaliyeed oo gobolka u dhashay iyo fikradan keenay waxaana ka soo keenay arrimaha saddexda qolna waa inay isfahmaan weeyaan Itoobiya arinta ugu dambaysa Itoobiya aan ka hadlay waxa Itoobiya waa diin baa la isku haystaa Islaam iyo Kristaan runahaan laga baxsanayo ma caasimadan maaragtay magaalooyinka waaweyn ee Itoobiya kamid ah magaceedana sheega ma rabo sida Mako kale warkaan waxa loo diiday in masjid laga dhiso masaajid laga dhiso lidee meel agteeda ah maxaa la dhahdaa Wajaale magaalada Wajaale dhahdo iyo kaniisad laga dhisay abdi ila waqtiisa la bixiyay kaniisada jigjiga kaniisad laga dhisay iyo shacab laga dhisay magaalo wal Soomaali degan tahay oo qof Kristaan oo Soomaali Kristaan oo jiraba yaa laga dhisay okay anaku kama horjeedno in laga dhiso dad Kristaan jooga oo ku tukanaya dad Kristaan ku tukanaya laakiin magaalo dad muslimiin ay degan yihiin oo gobolka Amxaarka ama gobolka wal meesha ku taala maxaa miskiidka loogu diiday looga dhisi lahayd waa su'aal weyn marka waxaan rabnaa inay dadka muslimiintu ay fahmaan dagaalku maaha dagaal diiniya inaan diini ka dhigna maaha muslim iyo gaal baa isdiray maaha laakiin dadka muslimiintu waa inay mandowta u ziyaartay Ahmed Abi majliska sare ee arrimaha islaamka aad baan u soo dhaweynaa fikrad fiican bayna ahayd fikradana waa u sheegeen waan ogahayna u sheegeen laakiin waxaan jecelahay inaan la dhaafo marxaladda al-istiraacaat ad-diiniya dadku inay diin isku haystaan fikir diiniya islaam qaar kale waxaa jira salafiya suufiya isku haysta Itoobiya dhexdeeda waxa ka sheekeynaya waxa waa inaan dhaafno weeyaan marka Itoobiyana si ay isbedel infijaar uga dhicin qarax uga dhicin waa in ormada la qaboojiyo waa in Soomaalidana la kiciyo Soomaalidu waxay baatay la kiciyo maskaxdu way hurdaa waa inay kacaan Soomaalidu saddex cadow bay leedahay Itoobiya dhexdeeda cadowga koobaad waa Jaad waa inaan fahanno taas weeyaan cadowga koobaad ee Soomaalidu leedahay waa Jaad Itoobiya dadka Soomaalida Jaadka cunug yar walwaalay badmooda marka Jaadka waa inaan la dagaalno dagaal cilmi laakiin cadowga labaad ee Itoobiya Soomaalidu ay leedahay waa maxay waa lacagta weeyaan lacagta dawladda qofku hadduu kol helo wad fajacaysa soo u galayo cadow weeyaan cadowga Soomaaligu dawladda iyo lacagteedaba cadow u yahay taana waa inaan fahanno qofka Soomaaliga ah lacagtu dawladda inuu hadduu fajacaysa waa cadow u tahay arrinta saddexaad qofka Soomaaliga cadowgiisa waxay Itoobiya degan waa jahilnimada weeyaan dadku wax la baro ma aha iskuul in la galo iskuul waa la galaa ka ugu doctoraha haysta ugu qabiilsan oo ugu wareysan dadka laakiin waxaan rabnaa inaan baranno dawlad si loo dhaqaa dawladnimadu ma ahin qofku isagoo u dhalan gobolkaaga ayuu noqon karaa gobolkaaga madax noqon karaa u dhalasho maaha imika Faisal ninka dhadhan sheegay waa nagu celinaya Faisal waa nin dhalinyaro ah magaalada Toronto
iyo dowladda hoose baarlamaanka ku jira uma dhalin dee Toronto ma ahi Canadian ma caddo waa Muslim waa Soomaali waa Afrikaan laakiin maanta baarlamaanku ku jira dadka wuxuu matalaa wali waxa loo dhibay xisbigiisa ma baarlamaanka waxa looga dhibay dhalinyarada gobolka Ontario dhab u fikra baarlamaanka Soomaaliya matalaa bal ninka ka waran waa Soomaali ka yimid xaga ma degan laakiin adiga maskaxdaada waxa ku jira waa akhi fillah inaad golfka aad u dhiibanaysid gobolkaaga province-kaaga magaaladaada inuu adigu ku noqdo reerkayga dhiigayga hoose waa inuu noqdo waa inuu ila qurac maaha ila laan waa inuu noqdo waa inaan waliba magaciisu aniga ay noqdo halkii horumar ka gaari doonta markaas ma gaari doonti marka waxaan uga jeedaa waxa intaas weeyaan Djibouti isku soo noqon doonaa waa mowduuc aad u kharaad waqti dhow baan isku soo noqon doonaa waa mahadsantihiin salaadii maqrib baa noo gaadhay annaka marka aan deganahay magaalada Ottawa iyo Gatineau caasimadda dalka Canada salaadii maqrib baa noo soo gashay waa mahadsantihiin meel kastoo joogtaan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka waxaan ilaahay insha Allah taala sidii caadigeena ahayd waxa la akhriyo akhristu waa nolol waxa la dhageysto waxna la barto dhageysiga cilmiga iyo akhristuna waa nolol weeyaan inaan iska noolaano li ajli noolaasho ma wanaagsan waa inaan u noolaano ujeedaduna waa in noqoto inaan ummadeena wax u qabanno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.